بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore maanta hadalkeena waxaan ku bilaabayaa tacsida abwaankeenii weynaa abwaanka qaran ahaa oo aan ka tacsideynaya inta af Soomaaliga ku hadasho dhan abwaan Ibraahim Ismaaciil Suguule Sooraan oo atiir qaranka afka Soomaalida ku hadasho dhan ka baxay ilaahay naxariistiisa iyo jannada ka waraabi inta af Soomaaliga ku hadashada tacsiba loo direynaa qaranka Soomaaliland waa ka tacsideynaa qoyskiisa iyo carruurtiisa iyo raaskiisa waa ka tacsideynaa ilaahay iyagana awil khayr qaba raaskii iyo carruurtii halkiisa u soo taasi waa tacsi talabaad waxaan maanta hambalyeeyaa ummadda Soomaaliland oo dhan gaar ahaan waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan shacbiga Soomaaliland inta ka nool ururka SNM oo maanta ay tahay maalintii gudagalka Burco ee la bilaabay dagaalkii gudagalka ee Soomaaliland lagu xoreynayay intii ku shahiiday intii ka horreysay intii ka dambeysay maalintaaba ilaahay iyagana jannada ka waraabiyo inta nool ee soo gaadhayna ilaahay cimrigooda iyo caafimaadkooda dheer aakhiro sanaa siiyo in yar baan ku hakanayaa taa 17 May waxay ku timid go'aan shacab waxa jirtay dhalinyarada u sheegaya inta waaweyn oo ogtahay daayartaan u xusuusinaya 1988 waxa Jabuuti ku shiray 3 madaxweyne oo ahaa madaxweynaha Itoobiya iyo kii Soomaaliya oo laba dictator ahaa oo labadaba jabhadihii ku soo kadiyeen oo labaduba leecleecaya ayaa waxay isugu tagay Jabuuti waxaanay ku heshiiyeen in Soomaaliya ninkii haystay markaa loo jiray afweer dictatorka ahaa uu ka daayo ninkii haystay Mengistu haystay Itoobiya inuu ka daayo taakawada uu siinayo PR xisbiga TPLF iyo xisbiga iyo jabhadii Eritrea oo u turnayo inuu gargaaro wuxuu ku qaldamay afweyne oo Mengistu weydiistay inuu joojiyo Mengistu taageerada uu siiyo mucaaradkii SNM taariikhdu waxay saxaysaa oo 27 May iyo 31 May sheegayaan oo taariikh cada inuu ku qaldamay shaxda kala taliyihii dictatorka ee afweyne wuxuu u haystay inuu tahay SNM xisbi ay gacanta ku hayo Mengistu iyo dowladda Itoobiya oo ay amarkooda taakulanteeda ku socdaan khaladka uu galay taasay ahayd SNM waxay ahayd way u joogtay nabad Itoobiya way siisay soo dagaalanto laakiin tiradeeda iyo saadkeeda iyo cudurkeeda iyadaan ahayd SNM markay sidaa ku heshiiyeen in jabhadaha la kala raro go'aankii SNM shacbigu wuxuu noqday annagu dalkayga xoreysanayna annagana dagaalkayaga wadayna taasaanay ku timid gudagalkii maalintaas waxaa xusuus mudan labadii taliye isaga horseeyay taliska oo maanta labadiiba nool yihiin oo la yaab leh labadaba ay madaxa kaga dhacday waa Axmed Bariye Maxamed Kaahid labadaba iyagoo dhaawacay madaxa kaga taalay soo baxeen labadaba maanta way soo gaareen iyo qaar badan oo fara badan oo kala dhaawacay qiimahaas ay leedahay 7 cisho soo socda qiimooyin badan bay leeyihiin 31 Hargeysa la soo galay 1987 waxa la dilay aalashiina oo cadawga joojiga si sharbool ugu dilay markaa taariikh badan baa isku sidkan waa xusaynaa waana u dabaaldegaynaa waana maalin taariikhi ah maanta halkan waxaa ka weyn u nimid inaanu taageero musharaxiinta kulmiye ee ka sharaxan gobolka Togdheer oo kala ah deegaanka iyo baarlamaanka qof waliba wuxuu ku taageerayaa wuxuu hayo annagu halkan waa u ololeynaa iyagana gobolada u maraynaa goboladana waxaan ku dhiirigelinaynaa waan ogahay oo doona maayo codsi
codka diyaar baalati kulmiye waan ogahay murashaxa kulmiye ka akrarbaayo laakiin waxaan u mid inaan idin xusuusiyo inaan maalintaa cod kulmiya baaqanin ragga qaylaha la soo toosiya way seexdaano qolada qayshe farintu ha la soo kiciyo dadka waayeelka ha la soo kaxeeyo kaadharka ha loo hubiyo waxaynu ku guulaysanaynaa maalintaasaynu codkeeda marayno taasaanu idina dhimid doorashadani waxay ka markhaati tahay taabagalka dimuqraadiyadda iyo dowladnimada somalilan iyo shacbiga somalilan waan idinku dhiirinayaa inaydaan codka daahin waato aynu cid walba tusayna waxaynu nahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad baa u mahadsantihiin soo dhawayntii soo baxa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatu